markaad aaminsan tahay maanta inaysan kula dhaafahayn oo aad dhimanaysid iyo markaad aaminsan tahay 10 sano ka bacdi inaad dhimanaysid isku si u shaqayn maysid isku sina u fakari maysid isku sina aakhiro ugu camal fali maysid qofku markuu og yahay ajashiisa inay tahay saacad kasta inay ku imaan karto hawadiisu way soo gaabaneen hidadiilkiisu waa soo gaabanaya maxaa hormarsataa buu leeyahay hadday tahay camal saalixa hadday tahay khayr kaloo wanaagsan ilaahay hortiisa maxaad u hormarsanaysa wa amma ittibaacu alhawa fayasuddu can alxaq hawada oo la raaca buu yidhi cali bin abi aalib qofka wuxuu ka leexiyaa xaqa ayuu ka leexiyaa mar haddii qofku hawa raac noqdo wuxuu ka leexinayaa xaqii ayuu ka weecinaya ahlu cilmigu waxay yidhaahdaan aslu kulli sharrin wa fasaad ittibaacu alhawa shar kaste iyo fasaad kaste asal waxaa u ah hawa raacnimo ayaa asal u ah qofku inuu naftiisu waxa ay jeceshahay uu ku xisaabtamo inuu meel mariyo oo uunan u eeginin waxaani maxuu yihiin base waa fiican yihin fasaad kasta ayada asal u ah walidaalika fasaadka jira iyo akhlaaq xumada jirta iyo burburka ummadaha iyo bulshada haysta waxa weeyaan qof waliba wuxuu ku dhaqaaqayaa wixii naftiisu ay jeceshahay ayuu hoggaansamaya waana arrin khatar ah diinka ilaahay sida naftaadu ay jeceshahay diinha ka dhigan sida ilaahay uu yidhi rasuulkiisu uu yidhi diinka uu ictiqaadi waxa aad ictiqaadinaysid oo aad rumaynaysid waa inaad tidhaahdaa alliya rasuul miyaa yidhi maxay daliilo oo leeyihi waxa ilaahay aad ugu dhowaanaysid oo aad ku cibaadaysanaysid oo ilaahay aad ugu dhowaanaysid waxa weeyaan waxaad ku didaashaa inay noqdaan wax alliya rasuul ay raalli ka yihiin oo ay jecel yihiin wax adigu aad jeceshaha ka dhig alliya rasuul markaa ogaatay inay diin ay ka tahay agtooda oo diinkii ilaahay oo xaq ah uu yahay markaa ogaatid naftaadu haddaysan jeclayn ku xambaa ku qasab waa inay raacdaa hadday jeclaydna fa abshir bilkhayr naftaadu naf khayrka u hoggaansan weeye oo xaqa raacday weeye khayr iyo wanaag ku bishaarayso dadkaagu waxa ay jecel yihiin iyo qoomkaagu waxa ay jecel yihiin aakhira diin ku noqon mayso mana ku badbaadaysid ummadduna badankeedu khayr darrada iyo sharta ayay jecel yihiin naftaada bal fiiri waxa ilaahay ugu dhowaanaysid ku didaa hadday tahay maal naftu waxay jeceshahay maalka in la soo xareeyo oo xerada uu soo galo xalaal iyo xaaraan miduu doona ha ku soo galo miduu doona ha ku yimaado naftu waxay jeceshahay maalku inuu xeradaada ku soo xaroobo ha ka yeelin ee la dagaalan meesha uu maalkaani kaaga imaanayo iyo dariiquu kaa soo gelayo ma tahay dariiq xalaal ah mase waa dariiq xaaraam ah naftaadu waxa ay rabtaa mar walba ha raacin hadday tahay dariiq xaaraama diid hana yeelin naftaadu haba jeclaato markaasaa nebigu dadkii laba nuuc ka dhigay quluubtoodii fa ayu qalbin ushribahaa nukita fiihi nuktatun sawdaa qalbigii arrinkaa la cabsiiyo oo fitankii aqbala oo qaata waxaa lagu dhifanayaa dhibic madow ayaa qalbigiisa qofkaa fuulaysa qalbigiisi ayaa dhibic madow ku bilaabanaysa wa ayu qalbin ankarahaa nukita fiihi nuktatun baydaa qalbigii inkira oo fitnada diida oo waxa xun ka hor yimaadoo diida qalbigiisa waxaa la saarayaa calaamad cad ayaa qalbiga nuur baa loo saaraya xataa tasiira alquluubu calaa qalbayn calaa abyada mithli safa falaa taduruhu fitnatun maa daamat alsamaawaatu waalard ilaa quluubtii iyo qalbiyaalkii ay noqdaan laba nooc qalbi cad oo safaa ah oo nadiif ah oo nuur iyo iftiin uu qalbigaa buuxiyey qalbigaa nebigu wuxuu yidhi fitna ma dhibayso inta samaawaadka iyo arladu ay jirto wax fitna ah qofkaas qalbigiisa ma ay dhibayso ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ka ilaaliyey nuurka qalbigiisa la dhigay baa ilaahay uga ilaaliyey waalaaakharu aswad qalbiga kale waa madow yahay waa kalkuusi mujakhiya wuxuu la mid yahay koob dhacay oo afki kor u taagayo oo foorarsaday oo dhacay baa qalbigiisa u foorarsanaya markaasaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam
لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا منكر كينا منكر وقرن ما هي إنه يهي وأركي ما هي على وحي حماء ودن ولا في عين معروف كينا ونا وأركي ما هي هذه وما هي إلا ما أشرب من هواه إلا أنت العبسيي أو بلايا قلبي يصدق تذا هودي سؤال عبتي أو نفتعيل كيسا أمبو بس عبسية وحكى المعبسة حلا علي وح خير ومغضى حمانتا هي الشرطة أيها حبين يا مالي بوتاقي نفتي سأيارته وحا أيا بالودي سؤال تاي حمانتا أنت أيا قلبي يصد بولي قلبي سوام مذوبادي ران أيا فولي معروف كستبع أركب ما يقفك إسقع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولو فيرسو إلهي وحو أقدق النبي إنه هودي سراعه هودا قال إنه راعه يا إلهي أقدق إلهي وحي ولا تتبع أهواءه هودا ذا الراعي نبي الله داود عليه السلام إلهي سبحانه وتعالى حق أوسي إلهي وحكوك لحكم بيري ولا تتبع الهوى هودا الراعي فيضلك عن سبيل الله إلهي ودذي سعيها والراع كالله منيا وحنفتو أي تعيشهاي وودد اللقوها لك سميه وإلهي سبحانه وتعالى ودذي سحقها كالله منها يوم ولذلك النبي قالنا صلى الله عليه وآله وسلم دعادي سوحا كم دها إلهي وحو كم قنقلي ترى النغذها والراع اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق إله وحن كان من قال يا أخلاق ذا حن والأعمال أعماش منكر كأحن والأهواء هو ذا حن إله كان من قال وحن كان من قال يا وإلهي كان من قال يا عمل حن إنه لي ماذا إنه هو ذا حن راعه إنه وحويان أخلاق حن لي ماذا النبي يقول إلهي بكم ينقل تري سبحانه وتعالى بل نبي يقول الشيخ صلى الله عليه وآله وسلم هودا أول الراعو إنه كم تاي وحيالها مهلكات كأ وقفك هلاتية إنه كم تاي وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم المهلكات ثلاث وحيالها قفك هلاتية صدح وي وحو النبي يقول كب اللابي شح مطاع بخيل نمو قفك قاري هير أيضا أطيعه بخيل نما اللي أدعسن يهي وقفك بخيل نما دي أيو قفاليه والرعسيه وحي واجب كاها إلهي ساري بكو بخيليه وسبحين كرهي قفك تاوى كوها الأكسمة وهوى متبع هوى الراعينة قفك وكوها الأكسمة وإعجاب المرء بنفسه قفك أو نفتي سلوين هذا وإسلياب وإسلعجبه taasna qofka way halaajisa haduu qofku ismoodo wax inuu yahay dadka inuu ka fiican yahay inuu ka sharaf badan yahay inuu ka qiimo badan yahay oo naftiisa uu la yaabo cujbiya la yaabo isku arko taasna qofka waxay ka mid tahay waxyaalaha halaajiya